بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قروحي عافيماد ما شاء الله. أصحابتي نلا joogto waa mahadsantihiin. Asxaabta cusub fadlan soo dhawaada, subscribe fadlan, gambalaalkana ku dhufsa saa u heshaan waxaan soo geliyo insha Allah. Maanta waxaan wadaa chicken avocado mango salad oo cajiiba ma sha Allah, aad u macaan, qurux badan ma sha Allah. Isla aragno saa u sameynayo insha Allah. halkan saxanka waxa ii saaran xabad avocado weyn insha Allah. salarka aan isticmaali doono maanta noocadiisa iyo xabad cambe ah insha Allah. ma sha Allah, qudaarta fruitki vegetables-ka aad ay caafimaad u yihiin in la cuno. hada ma sha Allah salarkii baan jarjarayaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. insha Allah kadib waan nadiifinayaa. waa kana markaan jarjaray si fiican aan u nadiifinayaa. qudaarta markasta caafimaadka ku jiro in la iska nadiifiyo intaan la cunin ka hor ama aad karin ka hor insha Allah. marka ma sha Allah si fiican aan u dhaqayaa insha Allah. hada waxaan jarjarayaa xabadii cambaha, avocado-dii cambaha hore u soo nadiifsaday. ma sha Allah cambaha waa fiiqayaa, waa jarjarayaa insha Allah. aad uma bisla laakiin waa cambe ma sha Allah macaan markii la cunayo. bisayl fiican weeye xagga cunida meesha ugu fiican yahay weeye ma sha Allah. marka ma sha Allah insha Allah soo tijaabiye aad u fiican tahay runtii. hadii qofka dadka dietka ku jirana way u wanaagsan tahay. ayada lunch ka dhiganaysaa ama casho ka jeceshahay enough weeye. waayo hilibkii baa ku jira, waa salad, waa fruitki ma sha Allah aad runtii u macaan yahay insha Allah. soo tijaabi. hada saladkii aan soo diyaariyay, cambihii aan jarjaray baan saaray ma sha Allah. laba dhinac aan ka saaray insha Allah. hilib chicken-na gooni baan u soo diyaariyay. hada waa kan xabadii avocado-da ahayd baan jarjarayaa insha Allah. saasa u fiiqayaa hadii Ilaahay yiraahdo. waa kan xabadii avocado-da ahayd baan jarjarayaa insha Allah. xogaa mindida iiga dhagdhagaysa oo korkay ka bislaatay, marka xogaa way qabsanaysaa mindida aan ku jarjarayo insha Allah. avocado-duna saa ognahay waa healthy, wadnaha u fiican tahay. chicken-kii baa hada jarjarayaa. waxaa kusoo sameeyay horey waa idin tusaa u maleynayaa qaabka u sameynaya chicken-kan mar hore soo geliyay ma sha Allah. si fudud waaye baa u sameynaysaa. hada waa kana chicken-kii qayb kamid oo kale taan jarjarayaa insha Allah. dhinaca kale ka saaraya, dhinaca hada waa ka soo saaray saxanka. hadana avocado-dii aan saarayaa insha Allah. yaanyaan ku sii darayaa wax yar oo yaanya. hadaa rabtid qudaaro kaleeto badan waa ku dardari karaa. basal ku darsan karaa, barbanooni hadaa rabtid. hadba saa u jeceshahay inaad u diyaarsatid. laakiin ma sha Allah marka isku diyaarisid saladka mangada iyo avocado-da iyo ka kooban chicken-ka, runtii qada fuula weeye. hadana waxaa cuntay qada caafimaad leh oo hadaa diet ku jirtid ama yacni markaas rabtid inaad wax badan oo aadan cunin aad ay u fiican tahay ma sha Allah. qadadan xabad yaanya baan hada jarjarayaa insha Allah, korkaan ka saarayaa. marka ma sha Allah insha Allah soo tijaabiya. waxaan rajeynayaa inay aad uga heli doontaan. waa salad yar oo fudud saa u diyaarsanaysid ma sha Allah. caafimaadna leh, tartiib tartiibna way fiican tahay. qudaarta sida Soomaalidana inta badan saa uma isticmaalno, marka tartiib tartiib hadaa u baratid waa la qabsanaysaa qudaarta insha Allah. caafimaadkuna ayada ku jira in la cuno markasta ma sha Allah. hada waa kana intii aan ku dhadhamin lahaa waa xabad liina, saliid olive oo 3 qaada iyo waxaa isticmaali doonaa insha Allah malab. intaasaan koobka ku qasi doonaa hadii Rabbi idmo. aad bu markaa waxay ugu yeelayaa dhadhan cajiib. liintii baa hada ku miirayaa bahasha yarta ah, biyaha dhan ay ka dhamaynaysaa insha Allah. marka koobka ku shubi doonaa hadii Rabbi idmo. aan isla socono marka. intaan hadaa salarka markasta ku darsatidna runtii waa macaan yahay.
haddaa rabtid malabka waa booskiisa waa iska dayn karaa, laakiin wuxuu u yeelayaa dhadhan yar oo aada u macaan. maasha allah. hadda saliidii aa ku shubay, liin dhanaantii aa ku daray, malabkaan kusoo darayaa 2 qaado camal oo malabaan ku darayaa insha allah. marka maasha allah si fiican baa isugu rixi doonaa insha allah. waxay noqonayaa marka isdhex galo subag camal oo soo ekaanaya. si fiican isugu ruxdid maasha allah, si fiican inaa u ruxdid way. koob daboolana ku shubanaysaa, si fiican baa isugu ruxaysaa. marka kaasaas oo noqday insha allah. kor baa uga darayaa marka salarka, salad cajiiba dhadhan macaan oo runtii u yeelayaa maasha allah. intaa banaanka kasoo gadan lahayd salad dress oo muddo ku diyaarsaneed oo preservatives lagu daray, waxyaalo kiimikooyin rabo cuntada inay ku raagto. waxa fiican insha allah inta gurigaaga ku taalaa ka diyaarsan karaa hadda waxaa rabtid maasha allah. waa ka hadda korka uga daray insha allah. aada u macaan yahay, si u qurux badan yahay, muuqaalkiisa abu ku deeqaya maasha allah. wuuna macaan yahay runtii markaa dhadhamisid. waa cunto yar oo caafimaad leh, waqti badan aan kaa qaadanayn intaad diyaarinaysid. hadday u badato 20 daqiiqo camal ay kaa qaadanaysaa. haddaa rabtid intaas markaad diyaarsatid waxaa sandwich baa kasii dhigan karaa maasha allah. wixii hadba ku diyaarsan baa dhexda kasii gashan karaa, ama intaas saxankaaga ku guranaysaa cunaysaa. waa qado dhammaystiran ama casho kaa jeceshahay hadba baa ka dhigan karaa maasha allah. waa kanaada intuu ka koobay oo chicken, avocado, mango ama cambe, yaanyo iyo salarkii oo ka hooseeya insha allah. soo tijaabiya. hadda waa kana saxan baa in yar kusoo guray maasha allah. runtii aada u macaan yahay. haddii insha allah waxaan rajeynayaa tijaabisaan inaad ka heli doontaan. markasta waxaan ku dadaalayaa cunto caafimaad leh inaa idin soo geliyo haddii ilaaha yiraahdo insha allah. kusoo dhawaada channelku, waa channelkiini. asxaabta nagu cusub fadlan subscribe. haddaa ka hesheen like u share garaya asxaabtiina iyo familkiina insha allah. markasta cunto yaro fudud oo caafimaad leh iga fisha haddii ilaaha yiraahdo. soo dadaalaya. daawashadiina aada ugu mahadsantihiin. fadlan subscribe channelka insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.